waxaa dhawaan soo idlaaday kulankii weynaa ee London Derby una dhexeeyay kooxaha kala ah Arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea kaas oo ka dhacay garoonka weyn ee Stamford Bridge ee galbeedka London. Labada kooxood waxa ay ku guda jireen tijaabo adag iyadoo Arsenal aad looga fiicnaa mar kale kulan kale oo ay wajaheen koox weyn. Kooxda Arsenal oo looga kulankeeda koowaad inay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Man City ayaa laga adkaaday toddobaadkii la soo dhaafay. Mar kale Chelsea la ciyaareen guul dara xanuun badan ay kala kulmeen 3-2 ayna ku dhamaatay ciyaartaas. Natiijadan iyo falanqeynta sheekadan waxaad kala socotaan Qaraax Tube oo wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta idin la wadaagi doona. Fadlan subscribe leh, like saar una share garee asxaabtaada. Waxaan kula wadaagi doonaa 4 waxyaabood oo u sabab ah guul darada soo gaartay kooxda kubadda cagta Arsenal mar kale. Tan ugu horeysa waxay tahay isfaham darada soo kala dhex gasha xidigaha kooxda iyo shaxda uu damacsan yahay tababaraha cusub ee kooxda Arsenal Unai Emery ayaa mar kale bedelay shaxdii kulankii koowaad ee Man City ku wajahay wuxuuna kursiga keedka ku soo bilaabay ciyaartan xidiga lagu magacaabo Aaron Ramsey kaas oo kulankii hore bilow ahaa ciyaartii City. Aaron Ramsey booskiisa waxaa la ciyaarsiiyay kulankan Ozil waxaana booska sagaalaad la geeyay Alexander Lacazette oo Webby oo shaqo fiican qabtay ciyaarta qaybteedii hore ayaana weerarka lagu daray. Darteeda Arsenal waxaa fududaatay in dhexdeeda aad looga xooganaado maadaama Jorginho, Ross Barkley iyo N'Golo Kante ay dhexda kala wareegeen xidiga dhawaan ku soo biiray kooxda ee lagu magacaabo Guendouzi iyo ciyaaryahan Granit Xhaka. Tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal wuxuu bedel ku keenay Lucas Torreira balse waxba uma qaban. Qodobka labaad bedelada uu sameynayo macalinka inta lagu guda jiro ciyaarta. Sida dhacdayba kulankii hore mar kale tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ciyaarta ka saaray Ozil oo bedelkiisu noqday mid la yaab leh. Alex Iwobi ayuu sidoo kale ka saaray ciyaarta iyo sidoo kale Granit Xhaka waxaana la keenay Alexander Lacazette, Aaron Ramsey iyo xidiga lagu magacaabo Lucas Torreira waxna kuma soo kordhin ciyaarta. Bedeladaas degdeg ah iyo waliba in ciyaartoyda aan boosaskooda islahayn la isku bedelo waxa ay keentay Arsenal mar kale in lagala wareego booska goolhayanimada. Peter Cech ayuu ku adkeysanayaa wali inuu yahay goolhayaha koowaad ee kooxda Arsenal labadii kulan ee la soo dhaafay. Arsenal waxa ay la soo wareegtay Bayer Leverkusen goolhayaheeda Bernardo Leno kaas oo ku wanaagsan goosha oo walina lama tijaabin. Darteeda Cech waxay keentay 2 gool oo degdeg ah in laga dhaliyo xilli dambena gool saddexaad Marcus Alonso uu ka dhaliyo. Dhanka afraad caawin la'aan Arsenal waxa haysta dhibaato dhanka caawinta. Markii hore Ozil ayaa si toos u ciyaarayay booska kubad sameynta waxa ka dambeyn jireen Aaron Ramsey iyo sidoo kale Xhaka balse sheekadan waa isbedeshay. Tababarahan ayaa rabay inuu ciyaaro kubad furan oo mar walba weerarka in la gaarsiiyo ay khasab tahay. Darteeda ciyaaryahan si toos ah booska 10aad u ciyaara ama booska caawinta ay u baahan tahay Arsenal. Afartan waxyaabood waxaa loo arkaa in Arsenal mar kale ay u sababtay guul dara xanuun badan inay kala kulmaan kooxaha ay xifaaltamaan ee Chelsea. horena waxay guul daro kala kulantay kooxda kubadda cagta ee Man City. waad ku maasantahay daawashada warbixintan. Qaraax Tube ayaad kala socotay. Fadlan subscribe leh, like saar una share garee asxaabtaada.